monkeypox ama busbuska daanyeerada. Busbuska daanyeerada waxaa la arkay sanadii 1958 markaas oo cilmi baaris laga sameeyay koox daanyeera. Keeskii ugu horeeyay ee lagu arkay qof bini'aadan waxaa lagu arkay sanadkii 1970 markaasna waxaa lagu arkay Ecuador waddanka loo aqoon jiray hadda loo yaqaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Sanadkii 1970 ilaa 71 wuxuu ku fiday galbeedka iyo bartamaha Afrika ayadoo markaas lagu holanay in la dabar jaro ama la dabar gooyo xanuunka loo aqoon jiray furuqa ama smallpox. Sanadii 2003 ayaa waxaa lagu arkay kiisas kamid ah oo la imaadeen calaamadaha cudurkani waddanka Mareykanka ilaa iyo dhowr kiis. Markaasna waxaa la qiyaasay inay ka soo gudbeen dhoofidda xayawaanada la geeyo wadamada Mareykanka ee laga keeno Afrika. Sida daradeed cudurkan waxaan ku ogaan karaa maxaa lagu aqoonsan karaa. Cudurkan waxaa lagu aqoonsan karaa wuxuu leeyahay qandho tiro badan, daal, murqo xanuun iyo qofka oo dareemo in meelaha oo qanjirada ah inay soo bararaan ama ay aad u barbaraan qanjirada sida qaybaha hoose iyo dhammaan qanjirada jirka. Sidoo kale xanuunkan waxyaabaha uu kaga duwan yahay xanuunkii loo aqoon jiray furuqa ama busbuska caadiga waa qanjir bararkaas. sida daradeed maxaa la haboon xanuunkan maxaa lagu daaweeyaa maxaa looga hortagi karaa xanuunkan waxaa looga hortagi karaa oo kaliya in la raaco hab dhaqanka amba habraacyada u degsan nidaamka cudurrada faafa oo ay ka mid yihiin dhaqista gacmaha waxyaabaha oo haddii aad taabato bukaanada qabo haddii aad taabato xayawaano qabo inaad dhaqdo gacmahaada sana aad ugu shaqeyso nadaafadda. sidoo kale xanuunkan waxaa la ogaaday amba la qiyaasay in looga hortagi karo oo talaalka loo qaadan jiray xanuunka la dabar jaray ee furuqa ayaa ah talaalka kaliya ee looga hortagi karo. goormee la ogaadaa qofka goormees lagu arkaa xanuunkan waxaa lagu ogaadaa marka qofka qandho badan qabato muddo 2 ilaa 4 bilood kadib ayuu soo baxaa calaamadihii iyo wixii dhammaay. sidee lagu ogaan karaa xanuunkan inuu laga bogsooday ama laga daaweysmi karo xanuunkan mid kaliya looga daaweysmi karo waa xanuun iskiis looga daaweysmo ma lahan daawo toos ah xanuun iska imaado si iskiis aan isku daaweeyo. sida daraaddeed waxaan la haboon inaan ka warhayno xanuunkan soo kordhay isla markaana dunida ku sii fidayo